waxaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu magacaabay maamulka gobolka Gado maamulka gobolka Gado markuu arkay dastuurka dowladda Jubbaland cutubkeeda 4 qodobka 72 farqada 5 ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabista xubnaha golaha fulinta Jubbaland markuu garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay in maamulka loo sameeyo gobolka Gado markuu la tashtay madaxweyne ku-xigeenada dowladda Jubbaland wuxuu madaxweynaha dowladda Jubbaland uu magacaabay Cabdullaahi Cabdi Jaamac gudoomiyaha gobolka Gado Cusmaan Nuur Xaaji gudoomiye ku-xigeenka ahna amniga iyo siyaasadda gobolka Gado Nasteex Cabdi Saalax gudoomiye ku-xigeenka ahna gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda Ibraahim Madoobe Maxamed gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Maxamed Xuseen Isaaq gudoomiye ku-xigeenka maamulka ahna xogayaha gobolka Gado magacaabistan waxay dhaqan galaysaa markii uu madaxweynaha saxiixo inta waxaan rabaa inaan raacsado inaan ugu baaqo walaalahay gobolka Gado inay soo dhaweeyaan magacaabista madaxweynaha iyo maamulkooda cusub waxaan rabnaa ka wasaaradda arrimaha gudaha inaan ballan qaadno in wixii kale ee soo haro dib u heshiisiin wada hadal isdhageysi garwaaqsi iyo isku soo dhawaasho inaan ku dhameeyno xaaladda gobolka Gado inta ka harsan waxaan rabaa inaan halkan ku faro in maamulka intiisa kale ay la shaqeeyaan maamulka cusub ee la soo magacaabay aad iyo aad baa mahadsantihiin